halkaanu ku sugannahay waa webiga Shabeelle qaybta uu ka maro magaalada JOWHAR ee xarunta maamulka Shabeelle waxaana saakay ay dadku ay ku waabariisteen biyo aad u fara badan isla markaasina kalarkooda uu yahay nooca gaduudka ahi waxaana dadka beeralayda ay sheegeen in biyaha webiga Shabeelle ee saakay uu keenay ay yihiin kuwii muddaba ay sugayeen isla markaasina ay haatan iyo wixii ka dambeeyaba ay diyaar garoobi doonaan tacabka dalagyada noocyadiisa kala duwan webiga Shabeelle oo maalmihii dambaba ehel la noqday qashin iyo waliba inay carruurtu ay ku dhaxyaaraan kubadda cagta ayaa saakay waxa uu jabigiisa uu ka duwan yahay sidii hore waxaana dadku ay indhahooda ay qabanayaan biyo aad u farxad geliyay dadka beeralayda iyo xoolo dhaqatada ku dhaqan magaalada JOWHAR xilli aan booqasho ku ayaa waxaan kula kulmay dhalinyaro fara badan oo halkaas ku sugan isla markaasina waxay iga warbixiyeen xaaladda webiga Shabeelle biyaha saakay ay ku arkeen iyo sida ay u soo dhaweynayaan iyaga oo qaybtoodba ka yimid tacabka beeraha waxaan faraxsanahay aad iyo aad ugu qanacsanahay Allah nasiyo roobka iyo biyaha webiga Allah nasiyo baan farxad noo bishaaradaas iyo barwaaqadaasna Allah noo deeqo waxaan ka faa'iideysan xoolihii oo naga oomanay oo biyo u helnay iyo beerihii naga baabi'i jiray biyo la'aanta oo biyo u helnay maadaas Allah iskale webiga intaani biyuhu ma ku iman jireen mise uu ka soo hormari jiray waqtiga biyaha uu keen wallahi horta sanadkan aad iyo aad awaar baan iyo biyo la'aan ay u dhacday balse hadda Ilaahay nasiyo deeqo haye ka faa'iideysigaada marka maxaa tacabtaa oo dalag ah xoolo aynka aad leedahay aniga qudaaraan tacbaa xoolana waan leeyahay Ilaahay oo carrada ugu soo saaro maxaa ku tacabanaan daadida oo beertaaga aad ku tacabtay mise diyaarinaysaa saakadar horta dhadhankooda biyaha waa lagu laban yahay laakiin inta 3 biri loo sugaa dhadhankii hore lagu qanilay hadda biyaha oo biyaha hadda ya maanta lagu maalinay Shabeelle soo booqdo inta biyaha oo laga baahan marmayni si amado wal maaragtay beeraley xoolo dhaqatay waxaan ku wada faraxsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo noo keenay roob shalay ilaa daraad oo roob Ilaahay noo keenay kadibna hooyadii soo xirsaday shalay oo xalay haddana aas soo darsoomay kulleyda waan ku faraxsanahay kulligeen oo dhan tacabka beeraha wallahi maanta oo ay ku wada jiray laakiinse maanta marka aas webiga imaaday waxaa laga yaabaa in badar fiican la helo badar dhul ku jira hataa waa iska wanaay kulley hadda marka uu roob ku imaaday 3 bil kadib waxaa laga yaabaa inuu soo dhashay badarkii beeralayda hataa qaar ka mid saakay way wada faraxsanaayeen wadayla iyo ambal waday shaqaale abuur roob wax badan ayuu hayay alxamdulillah webiga Shabeelle ayaa waxa uu yahay il dhaqaaleedka kaliya ee dadka ku dhaqan gobolka Shabeellada dhexe gaar ahaan degmada JOWHAR ay ku tiirsan yihiin isla markaasina ay ku qanacsan yihiin wax soo saarka biyaha webiga Shabeelle ay u sii isticmaalaan Cabdi Fataax Ahmed Maclow Zaki Bulsha TV JOWHAR